baasto waxaanu aragnaa si sharciya oo xaq ah oo dhaqan ah inay u xirgashay oo u dhacday xasan baasto galmudug madaxweynaha hore ayay marka sidee ku wada shaqayn karaan sidee isugu tanaasuli karaan waxay ku wada shaqayn karaan oo isugu tanaasuli karaan madaxweynaha hore isagoo iska socda ma imaane dad baa keenay waxaa lagu doorta macne annagu haddaan tilmaanta ku fogaanayna mana rabno inaan ku fogaano laakiin kan waxaa u yeertay mujtamaca deggan deegaamada 11 qabiil deggan tahay waxaa lagu doortay si sharciya oo xaqa oo aan lacag ahay wuxuu u shaqaynayaa sideedaba shaqooyinkaan u dooranaaba waxay tahay si fasax inuu shaqeeyo ama se deegaamada dadka kala jiran oo kala shakisan inuu isku geeyo iyo dawladda oo u wada xiriiriyo kuna wada shaqeeyo deegaanadu ka shaqayn karo caadadu intaay asaga jooga ugu doortay oo sameeyay ma tii karo meelaha uu soo karo oo shaqada uu ka bilaabi karo waa meelaha xaqbida dhuusamareebba waxaa u doorana shaqadan u dooranaba waxay tahay inuu inta tago ka soo shaqeeyo deegaanka cadaada iyo dhuusamareeb iyo dawladda isku xidhiya shaqadan u dooranaba intaas magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Xuseen Jimcaale dareenkaygu aad iyo aad buu kacsan yahay maadaama aan nahay reer galmudug aan dooranay dawlad maamul goboleed aad iyo aad u wanaagsan aan kadib la soo gudubno dhibaatooyin aad iyo aad u wacan ay la soo gudboodaan reer galmudug ay saameyn ballaaran ku yeelatay maadaama uu ka dhacay isqabsi xoog leh iyo iska daba jiitan waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dadka reer galmudug marka hore waxaan leeyahay waa inay aqoonsadaan danahooda iyo aytiinkooda dambe iyo wuxuu fiican isqabsiga siyaasiyiinta ku soo had siyaasiyiinta waxaan leenahay jiid aan ku jiida waa gacmo daalis ilaa 60 bay socotay waa inay ka fiirsadaan ayahooda dad waxay ku yihiin shacabka Soomaaliyeed waa inay danahooda gartaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي وعمر سو محمد أحمد شغلة كم إذا دنيرة ديجان كعدادة حرنت برلمان كجلمدوك هاد بوسو دووني دورشة كده عضي عاصمة دا برلمان كجلمدوك عداده وعن له هنبلي مدحونا عصوب أحمد باستو ما دام جلمدوك يكبح ويسقفش باللارن السيتشيد هذا كله واحد لجارجونتي جنانتكي وعن له هلا الشقة جلمدوك يحوصل الله وتسلانك سياسة وعن له هلا الشقة مدحونا عصوب هلا سود ويو aad baan u taageersanahay wixii hore dhacay la iska ilaawo dadku waa ehel iyo qaraabo waa isku deegaan galmudug ka noolaad bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saciid Qoolif Shire sawarta dareenkaas iyo doorashada ka dhacay magaalada gudaheeda aad iyo aad wax loo baahnaa waana soo dhaweynaynaa waa garta marka sidoo dareenkaagu yahay Axmed Cali Gelle Xafa jooga iyo Axmed Baasto soo la doortay sidoo wada shaqeyn kara sidoo isku fahmi kara ma inna dad shacabka ka gadmaya iyo dadweynaha adduunkan inna waa nin xoogaa shaqadiisii soo gabagabowday waxa qabadka la rabaa wadanka waxa qabadka aqoon kuma horeysa marka horta loo qoonsado inaad tahay madaxweyne rasmi ah galmudug madaxweyne u ah beesh dadku caalamku inay aqoonsan rajaynayna hadii ilaahay idmo inuu noqdo madaxweyne si weyn rajo fiican ku qabnaa rajo fiican aad iyo aad shacabkii nahay aad iyo aad xaaladda guud ee magaalada waa sidaa ku sheegay mana jiraan wax kale oo dhibaato oo ka jira magaalada xilli roobaad ayaa